magaalada Hargeysa waxaa ku sugan dumar danyar ah oo subax walba u soo kaca sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen ubadkooda ama walaalahood. dumarkan ayaa sheegay in noloshu ku adag tahay. haddaba qaabka dumarkan ay u shaqaystaan waxa warbixintan ka soo sameeyay wariyaha VOA da magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye. gidaarkan iyo kuwa kaagdhow ayay fadhiistaan iyagoo sugaya cid shaqo u dirsata halkaas oo qaarkood sanado badan ay fadhiyeen. gaadhi kastoo agtooda istaaga waxay u holladaan ama badankooda u yaacaan dhankiisa iyagoo malaynaya inuu wato qof doonaya in loo soo shaqeeyo maanta oo keliya. sagal cabdi qiyaastii da'deedu waa 40 jir haysata 5 caruur ah. waxay gidaarkan cidlada subax walba ku soo kalahaysay oo ay fadhiday isla markaana shaqo raadis ahayd muddo 7 sano ah. waxaan weydiiyay dareenkeeda iyo waayaha ku gadaaman iyada iyo inta la midkay halkan timaada. Hargeysa ma ku noolaa waxaan deedanayaa duruufta kulina soo saartay caruur yar baan shaqaystaa caruurta waxa weeyaan abad waan kala tagnay anu bahalka ugu xoogsada waxa ilaa waxa limaata todobada waxaan qabtaa guriyaha maarista dharmaydka masaxadaha fudud kale sida marshado kale wala noo ka haystaa ilaa waxaan ka tagnaa dad dumar baa ka tagay ilaa 5 galabnimo intay 6 yimaadaan ama 7 bay yimaadaan ayay ka tagaan ilaa 5 galabnimo iyo kuna amal bahaynin oo halkii cadceed iyo dabashiba ku dishay. sida ay sagal ii sheegtay dumarkan qaarkood ayaa sida ay gidaarkan u fadhiyaan bisha dhan 2 maalmood oo kaliya shaqeeya. waxaan weydiiyay sida dareenkeedu yahay marka ay ubadkii oo cunto ka sugaya ay ku laabato guriga iyadoo faramaran. waxaan dareemaa waayo waxaan gurigaagii oo maran badsaaka ka soo kalaaday gurigoona wuxuu sidina wad ku noqotay ubadkii wuxuu hoom mooyaan ma garanayaan iyo ku waxba la waayay wallahi waqtigaas waa nagu adag noqoshadaas oo kale. waxay qaarkood ii sheegeen in subax walba ay u soo lugeeyaan halkan masaafo dhan 6 ilaa 8 kiiloomitir iyagoo kala haya mararka qaarkoodna waayuhu baday inay gudaan xilliyo aanay cidi soo jeedin. waxaan weydiiyay inay wax dhibaato ah la kulmaan. horta ma bulshada noo shaqeeyna wax dhibaato ah kama aragno laakiin meesha horta dariiq waan dumar baan nahay meeshaan fadhinaana waa dariiq waxa la sanno waalan kuwa mirka qababa ka biicaya kuwa waalan bana ku deynayna ku ereynaya marka horta dhibaatadu iska far badan tahay qaarkood ka walwalayiin baa jira anigoo barkaan cartaan haysto qaar baa bood walay intaas oo dhib ah iyadoo ay wajahaan ayaanay haddana rajo dhigin ama aanay qoys ka joogin nolosha. barwaaqo waa gabadh dhalinyaro ah sida ay sheegtay waxa halkan ku soo kala haysay muddo 5 sano ah. waxay u shaqaysaa 7 caruur ay walaalo yihiin iyo waalidkood oo ay la daala dhacdo quudintooda waxbarashadooda iyo noloshooda guud. waxaan weydiiyay rajadeeda nolosha. أنا حنيكسنا وحي لهاي قلت لك الميل بيالا لكن أنت اسمها هيكسنا نروح هذا الميل خير قبتي لهاي مريم خير قبة ولد كنا وحكى ترى لكن سبحان ظروف تيجي بها كيسو قارسيتي لكن سوى عن كل نصطون غير كي كنا وحكى ترى إني لا خير قبسي. أنت لا أعرف كيقولك أنا يقولك هيك واحد خير قبيلة هاي السنة أنا برتها وان كشقينا يا والدك هنا وأنا كنت عايزني أبد خير قبنا إلى هينو أبد خير إلى هي بركة أنا إلى تعب كي قصارن. haweenkan waxay sheegeen shaqo la'aanta ay u dheertahay cadceed board iyo dareenyada jidka ay fadhiyaan isla markaana shaqo abuurka ay u baahan yihiin kasoko ay daneynayaan inay helaan goob loogu soo hagaago oo dadan kana durugsan xaaladaha qalafsan ee hadda ku sugan yihiin. haweenkan ma moogana mas'uuliyadda bulshada inteeda kale ka saaran ee dawlad iyo shicibba leh waxaanay qabaan codsigan. haween madaxdu way ku martaa meesha madaxdu inta way arkaysaa madaxda qaar baa ka kaxaysata meesha oo loo soo shaqeeyaa waxa weyn hooyooyin baa jira agooma haysta toban ciyaal haysta qaar baa 8 haysta qaar baa 9 haysta waxaan u baahanahay waxa weeyaan ana ku danyar baan nahay saad radaba waxaan doonaynaa dawladdu wixii ay nagu tari karaysaa inaan ugu tarto wayna caawiso ay hoos noo soo eegto waxa weeyaan dumarka meesha fadhiyo Soomaaliland ma hadda shisheeya awlaadda loo soo shaqatay waa awlaadii u bixi dalka weeyaan qurba jooga iyo dalka deeba bashtarka waxaan u sheedinayaa danyartooda magaalada ku nool inay soo eegaan. Barkhad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa.